السلام عليكم soo dhawaada maanta waxaan rabnaa inaan ka hadalno calaamadaha ugu horeeya gabadha isku arkayso haddii ay uur qaadeen runtii markii laga hadlayo uur gabdhaha qaar way ku kala duwan yihiin kuwa qaar ayaga dareemi karo inay uur qaadeen kuwa qaarna runtii way ku adagtahay inay dareemaan so waxaa rabaa marka waxyaabaha ugu muhiimsan ee caddeyn ku ah inaa uur qaaday inaan kula wadaago anoo soo koobaya lambarka koowaad waxay tahay waxaa isku arki doontaa wax la yiraahdo naasa barar okay naasaha waxa ku imaan doona barar sababtan waxay tahay jirkaaga wuxuu isku diyaari doonaa inaad ka baxid kalinimadii inay ilmo imaadaan soo xubaahin marka in nuujin loo sameeyo soo jirkaaga marka isbedel oo sii sameeyo doona isbedelkaas wuxuu sii sameynaa in markii cunugu uu hore ka dhashto ay imaadaan wax la yiraahdo lactation sidoo kale gabadhu waxay isku arki doontaa ama ka maqnaa doona caadadii waxay isku arki doontaa ayadoo caado u saxnay in caadadii ay ka maqnaato ayadana runtii waxa calaamad aad iyo aad u weyn u tahay inay gabadhu uur qaaday so inkastoo caadada ka maqnaatay waxaa qaar kala keeni karaan sida cudurrooyinka qaar inay keeni karaan laakiin the most common ama midka ugu muhiimsan ee keeno in gabadha caado ka maqnaato waxay tahay uur inay qaaday so marka haddii caado ka maqnaato ayada naftirkeeda waxay calaamad aad u weyn u tahay inay uur qaaday sidoo kale waxyaabaha gabadha isku arki karto waxaa kamid ah tabar badan inay dareento daal badan inay dareento maanta oo dhan inay rabto in iska jiifato waxyaabaha kale isku arki karto waxaa kamid ah madax xanuun joogto inay gabadha dareento dhabar xanuun inay dareento sidoo kale kaadi badan inay isku aragto waxyaabahaas oo dhan ayadan runtii waxay calaamad u tahay in gabadha uur qaaday waxyaabaha kale ugu muhiimsan isku arkaysa waxay tahay gabadha in maxaa la yiraahdaa cuntooyin qaar ay jeceleed ama waxyaabo qaar in ay u aragto ama ay usoo shiiraan ay ku noqdaan waxyaabo ay aad u neceb tahay ayadan runtii calaamad muhiim ah ay u tahay marka inay gabadha uur qaaday waxyaabaha kale oo calaamad muhiim ah ayadan waxay tahay gabadha in lablabo imantag ay runtii subaxdii alseedii oo kale aad isku aragto sababtu waxay tahay waxyaabaha keenaya in gabadha lablabo imantag imaadaan waxay tahay waa jirkeeda waxaa ku jira hormones so isbedel ay jirkeeda ku socdo marka okay isbedeladaas jirkeeda ku socdo marka maadaama gabadha aysan la qabsan karin ciyow soo jirka wuxuu keenaa marka gabadha in lablabo imantaga imaato so marka maxaa la yiraahdaa calaamad waxay u tahay naftirkeeda gabadha in ay uur qaaday haddaba su-aasha kale ee taagnaanaysa waxay tahay waxaa isku aragtay calaamadahaas sidee loo xaqiijin karaa marka inaa uur qaaday waxaa u baahan tahay in la xaqiijiyo so laba mid waa la sameyn karaa in isbitaal tagtid kaadi ama dhiig laga qaado la fiiriyo maxaa la yiraahdaa hormoon la yiraahdo HCG ayadana wuxuu caddeyn doonaa inaa uur qaaday ama sidoo kale in farmashi aad tagtid aad soo gadatid kii uurka kadibna iska fiirisid ayada naftirkeeda runtii wuxuu calaamad u yahay in maxaa la yiraahdaa uur qaaday so adoo gurigaaga jooga waa sameyn kartaa adoo isbitaal tagtidna labadaba waa sameyn kartaa si loo xaqiijiyo inaa uur qaaday okay calaamadii markaa isku aragtid waxaa dhiman in la xaqiijiyo kaliya labadaas shay ku xaqiiji kartaa haddaba markaa uur qaadid waxyaabaha ugu muhiimsan ee lagaa rabi doono maxay tahay waxaa ugu muhiimsan lagaa rabi doono waxay tahay in markasto booqatid isbitaal in daawooyin waxaa jiro markii uur la qaato oo vitamins la yiraahdo folic acid sidoo kale la yiraahdo so waxaa muhiim ah marka MCH ama hospital inaad markas ku xirnaatid okay bilaha ugu horeeyana in markasta computer ay saartid bisha koowaad ama bisha labaad so bisha lixaad oo kalena inaad mar issaartid bis sagaalaadna inaad mar issaartid okay so markasta dhakhtarka kuu sheegi doono waxyaabahaas oo dhan so waxyaabaha ugu muhiimsan aan kula talinayo waxay tahay marka in marka uur qaadid uurkaaga uu noqdo positive oo lagu dhaho uurkaaga waa sax oo astaamaha isku aragtay iyo baaritaankii labadaba uurkaaga waxaa la yiraahdaa waa positive so waxyaabaha ugu muhiimsan marka laga rabi doono waxay tahay inaad isbitaal booqatid markasta xaaladaada ka warhaysid ku xirnaatid MCH ama isbitaal si xaaladaada loola socdo so waxaan rajeynayaa in waxyaabo badan ka faa'iideen haddii calaamadahan aan soo sheegnay isku aragtay waxaan rabnaa in aad nala wadaagtid xagga commentiga haddii aadan isku arkinna in ayada naftirkeeda nala wadaagtid thank you so much waa mahadsantiin waxaan rajeynayaa in waxyaabo badan in ka faa'iideeyay haddii aad comment qabtiin ama su-aal qabtiinna xagga hoose noogu dhaafa insha allah waxaan rajeynaynaa every question ama every su-aal aan weydiisin inaan idinkaga soo jawaabno thank you so much